waxaad u baahan tahay inaad hesho dakhli ku soo gala. Si aad u heshana waa inaad samaysataa xirfado dakhli kugu soo gali karo adigoo gurigaaga jooga meelna aadan ka aadin sariirtaada. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Yaasiin Guutaale. waxaan kugu soo dhaweynayaa kanaalka nolosha. haddii aad tahay markii kugu horeysay, subscribe dheh kanaalka mahadsanid. waa maxay dakhli ku soo gala ama afka qalaad wax lagu yiraahdo passive income? Passive income waa income ama dakhli ku soo gala adigoo aan qasab kugu ahayn inaad shaqeyso ama wax badan qabato. haddaba dadka inta badan waxay u shaqeeyaan in lacag sameeyaan. ka waran haddii aadan shaqo lahayn oo aad dhigato jaamacad ama iskuulkaaga, ma samayn kartaa dakhli fara badan adigoo aanan shaqo badan qaban ama jaamacadaada sii wata? haa, waad samayn kartaa, oo sababaha uu qofku u doono passive income ayaaba ka mid ah. waxaan kuu soo dhigay linkiga hoose si aad u akhrisato dhammaan waxyaabaha ku saabsan ganacsigaaga. check it dheh linkiga koowaad, halkaas ayaad ka arki doontaa waxyaabaha ku saabsan ganacsiga. haddaba waxaa halkan kugu sheegi doonaa 4 xirfadood aad ka samayn karto lacag fara badan adigoo gurigaaga jooga ama jaamacadaada dhiganaya. haddii aad barato xirfadahan, waxaad awood u yeelanaysaa inaad hesho lacag aad isku sii wadi karto mustaqbalkaaga. xirfadahani waa kuwo barashadoodu sahlan tahay. 1. creating course, koorso ka samaynta xirfadda aad leedahay. inaad koorso ka samayso xirfadda aad leedahay kadibna aad dadka usoo bandhigto adigoo sameynaya social media inaad ku baahiso xirfaddan. waa qaab isticmaalna dadka xirfadaha yaqaana haddana aan lacag haysan. kadibna maalin kasta ay arday cusub lacag ka baraan, halkaasna ay lacag ka helaan dakhli ayagoo jiifa. koorsada ay duubeenna maalin kasta ay dadka siiyaan. 2. YouTube channel, samaynta YouTube channel. maxaa halkan u keenay samayn YouTube channel? aad iyo aad ayaad ula yaaban tahay. dadka caanka ee aad daawanayso maalin kasta waxay lacag ka sameynayaan daawashadaada. aad daawanayso muuqaalkooda wuxuu rabaa ha ahaadee. sidoo kale YouTube channel waxaa waxyaabaha ugu fudud ay Soomaalida income wanaagsan ka sameeyaan. waxaad hadda ka samayn kartaa YouTube lacag, waxaadna furan kartaa YouTube mustaqbal leh. aad iyo aad ayaana ugu soo bixi kartaa arrinkaas iyada ah. 3. blogging ama website samaynta. website inaad samaysato kadibna aad soo dhigto muuqaalo ama article aad soo xulatay maalin kasta, usbuucii 2 mar ama maalin kasta aad baarto oo article aad samayso. aad ayuu u sahlan yahay. halkaas waxaad ka samayn kartaa lacag aad iyo aad fara badan adigoo Google Ads heshiis la gelaya. kadibna waxay kugu siin doontaa lacag, waxayna ku xiran tahay viewska inta aad dadka aad ka helayso. Number 4. Facebook ads making, inaad samaynta Facebook xaysiin. tani waa mid ay sameeyaan Soomaalida kuwa caanka iyo kuwa Facebook page-ka wanaagsan leh. waxayna u xaysiiyaan shirkado ganacsigooda, halkaasna waxay ka helaan lacago waaweyn. waxayna ku xiran tahay viewska aad hesho. ayay ku xiran tahay. alright, hadda meel ku qoro 4taas xirfadood dhammaantoodba waad baran kartaa. sidoo kale mid ka mid ahna waad baran kartaa oo xooga waad saari kartaa. laakiin mar walba waxa wanaagsan meelo badan oo dakhli ka soo gali kara inaad leedahay. waxaan soo wadaa fiidiyoyaal kale oo xiiso leh. fadlan taaba isku xiraha channelka iyo adiga subscribe. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.